magacaygu waa Mahad Cumar Ducaale. waxaan rabaa inaan halkan idinku soo gudbiyo tix maasa ah. tixdani waxay si dhiiran u qeexaysaa aragti shakhsi dhalinyaro ah oo ka biyadiiday habdhaqanka foosha xun ee qabaliga ah ay u badan tahay ama ay horseedka ka yihiin siyaasiyiinteena. maasadani waxay la magac baxday waaqaca ma qarin karo. waxayna ku bilaabanaysaa sida tan: qalab lagu danaystiyo, qori lagu tallaabiyo, jaranjaro qalloocdiyo, qalwo maqalaheedoo lagu tuuro qabadkiyo qaadh adhi ma noqon karo. quud jidiinka mara iyo qada maalin lagu cuno, uma qubo dhareerka oo qunyar la ima sabi karo. bulsho kala qalootiyo, qoom iyo tolgaariyo qolo uma xidhnaan karo. dad siyaasi kala qubay, anoo qaran ahaan kara qab, anoo lahaan karaa qof handheerle noqon karaa, qaaradayda hagi karaa, qarankayga hanan karaa, qiimo yeelan kara sare, qaabeeye noqon karaa, noloshiisa qori karaa, qaaradiisa hanan karaa, qaran sharaf leh oo jira hogaankiisa qaban karaa, silis wada qabyaalada qoorteyda kuma xidho. waaqaca ma qarin karo, quful kuma afgoyn karo. garashada qalloocani ima qiiro geliso, qof buka oo haddana ladan, qaldan oo haddana saxan, qardajeex ma noqon karo. hebel ila qabiil ahay, qadiyaadka beenta ah qalbigayga kuma habo. kanaad kala qalootaan, kanaad qolo wadaagtaan, kanaa beri qof kaa dilay, qof u nool qof kale, iyo hal qallaxan ma noqon karo. maankaygu qolo diid, qaran baan u baahnahay quwad iyo awood badan. qaran baan u baahnahay markaan qaarad kala tago lay qadariyo mooye aanan quubsi filanayn. qaran baan u baahnahay qabna kuma xidhnaan karo.